waa tahay daawadayaal kusoo dhawaada f c t v barnaamijka caawa waxaan kusoo qaadanaynaa oo weli daba joogaa barnaamijyadeenii hore oo ku saabsanaa arrimaha falanqeynta siyaasadda soomaaliya gaar ahaan xilliga kala guurka ee doorashooyinka loo diyaar garoobayo iyo weliba dhanka musuq maasuqa dowladda federaalka ee wado su-aalaha isweydiinta mudan ayaa waxay tahay yaa diidan doorashada maxaa diidan doorashada guddigii doorashadu way sheegeen in doorashadu ay qaban karaan xilli allaale xilligii la yidhaahdo doorasho ayaan diyaar u nahay kama daalo miyaa musuq maasuq madaxweyne farmaajo waa su-aal kaloo taagan kadib markuu been abuur ka sameeyey ururada bulshada uu la kulmay uu sheegay inay taageersan yihiin doorasho qof iyo coda ayagoo aan arintaas kala hadlin beeniyena oo yiri arintaa kalemaana hadlin dhinacna ma taageersanin doorashadii dadku ku heshiiyo soomaali ku heshiiso ayaan taageersannahay midda kale waxay tahay rajada qarannimada iyo dimuquraadiyadda soomaaliya xaggee bay maraysaa mar haddii xaalku sidaa yahay barnaamijka waxaan ku qaaba dhigaynaa qeybaha soo socda la soco barnaamijka sidaa la socotaan madaxweyne farmaajo waxa uu tegey magaalada dhuusamareeb waxaa kaga horeeyey ra-iisul wasaaraha waxaa kaloo kaga sii horeeyey madaxweyneyaasha maamul goboleedyada maaragta maaha arinta meesha loo fadhiyay arrin sahlan waxay ahayd arrin aada muhiim u ah oo looga hadlayo si dalkan ay uga dhici lahayd doorasho waxaa wararku sheegayaan in la isla dhaafi layahay inuu madaxweyne farmaajo uu leeyahay xilligaa lay kordhiyo doorasho qof iyo coda ayaan doonayaa inaan qabto doorasho qof iyo coda soomaaliya sidee uga dhici kartaa diiwaangelin ma jirto maxaa la yihahdaa nabadgelyo ma jirto dhaqaalihii ma jiro ma wuxuu doonayaa inuu kursiga iska joogo doorashooyin sharci ah oo baarlamaani ah ayaa soomaaliya samayn jirtay markii la samayn waayo doorasho qof iyo cod inta laga gaarayo doorashooyinkii qof iyo codkaana lama samayn karo kuwii baarlamaaniga ahaa ee federaalka ayagaba sharciga ahaa oo ahayd maadaama waqtigii uu farmaajo soo cunay 3 sano waxaa la rabay inuu soo diyaariyo ilaa 4 sano adirtaan inuu soo diyaariyay ahayd doorashadii ma soo diyaar garoobin marka wuxuu doonayaa in loogu daro 2 sano kale sharcigu ma dhigaya taas sharcigu ma dhigayo madaxweynuhu wuxuu doonayaa inuu dadka mare habaabiyo sidii dabeecaddiisa caadiga ahayd oo beenta iyo musuq maasuqa iyo isdabamarinta uu ku shaqaysanayay oo uu doonayo dadku inuu mare habaabiyo been u sheego haddaan maaragtay aan dib u jaleecno hadaladii gudoomiyihii guddiga doorashooyinka xalimo yarey oo lahayd doorashada waa qaban karnaa doorashadu maaragtay dib u dhici mayso oo waa qaban karnaa maxaa maanta isbedelay doorashada in la qabto diiday maadaama ay shalay la qaban karay oo doorashada dib u dhici mayso hal maalinna ay lahayd maxaa diiday maanta in maaragtay doorasho la qabto oo ayadoo diyaar u ahayd aan hadalkeedii dib ugu laabanno waxay aaminsanayd iyo waxa ay ka lahayd doorashada maalintii la yidhaha doorashaha la qabto ha u malaynina in oo kow laga soo bilaabayo wixii waa idiin diyaaray yihiin horeyaa laga baxaa horaa laga qabanaya doorasho waxaana idiin sheegaa maantadan la joogo haddaan isku raacno in doorasho la qabto waa la qaban karaa maskaxdiina ka bixiya doorasho lama qaban karo doorasho waa la qaban karaa maskaxdiina taas geliya waxaa noo qorshaysan bisha maarso doorasho waa la qaban karaa laakiin
markay lahayd doorasho waa la qaban karaa waqtigaa kasoo wareegay 2 sana kasoo wareegtay maanta lama qaban karo sababtoo ah dadkay ku qancinaysa ayada haddeer waxay ku leedahay doorasho lama qaban karo shalay dadkii ku qancinaysa waxay lahayd doorasho waa la qaban karaa waxay soo bushgaraynaysay in la gaaro xilli maaragtay xeerihii fandhaalka la dhaceen oo waqtiguu dhammaaday oo ay noqoto madaxweynaha in waqti loogu daro in lagu qasbanaado see loogu darayaa waqti isagaa waqtigiisa soo cunay isagaa samayn waayey shaqadii loogu talagalay oo guddiga doorashada la rabay inuu ku shaqeeyo oo yidhaahdo diyaariya dokumentiyada dadka codayn lahaa qof walba sharcigiisa fara laga qaado qalabkii la keeno united nationka garab taagan eu waa garab taagan waxaa garab taagan au garab taagan ade eurubiyanka garab taagan oo au yaa maaragtay shaqo qabtay lama qaban macnaha waxa weeye aan sii joogo macnaha waxa weeye aan meesha joogo beentii shalay uu farmaajo meesha ku hayay ayuu maaragtay maantana ku hayaa mana ahan wax haddii la yidhaahdo maaragtay ha lagu dhaqmo oo qaab dowladnimo ha lagu wada leeyahay wax qaab dowladnimo lagu wadi kara maaha madaxweynuhu aad ayuu u been badan yahay beentiisii waraysi ee la yeelatay qaar ka mid ah ururada bulshada v o eda balla idiin shido xubnaha bulshada rayidka maalmihii lasoo dhaafay la qaadanayeen madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedyada ee ku sugan Dhuusamareeb qoraal ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya ayaa lagu sheegay in ururada bulshada rayidka ah ay madaxweynaha la wadaageen rabitaankooda ku aadan doorasho qof iyo cod ah oo dalka ka hana qaada waxa ayna muujiyeen baa lagu yiri qoraalkaasi in qorshahaasi ay bulshada rayidku ku garab taagan yihiin guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka Cabdullaahi Maxamed Shirwax oo ka mid ahaa xubnihii bulshada rayidka ku metelay shirkaasi ayaa gabi ahaanba diiday in bulshada rayidka ah ay soo bandhigeen rabitaan la xiriira hanaan gaar ah oo ay iyagu doorbidayaan waxaana uu sharxayaa qodobada ay ku diidan yihiin qoraalka ka soo baxay madaxtooyada waxaan muxuu ahay ku jirnay xog waraysi inaanu madaxda dhageysano siday wuxuu ahay waxay rabi lahaayeen siday u arkaan xalka inaan dhageysano markaas bacdi aan fariisano xogtii aan soo ururinay aan falanqeyno markaan falanqeynana inaan bulsho weyntii Soomaaliyeed aan la wadaagno qorshahaasaan noo dhigtana marka wareegii ugu horeeyo xog ururinta ayaanan hortaba dhaafay taasi waa mid waafaq midda kale oo labaadna waxa waaye guddiga oo qaranka ee doorashooyinka meesha qodinba namana weydiisan inaan oo ahay aanu qorshahay wadaan aan ku taageero arrinta kale ee saddexaad waxa waaye madaxweynaha su-aalaan weydiinaynaba horena isagu waa noo weydiiyo noloda ma wadataana uuna yiri waan u sheegnay shalana wuuna weydiiyey horena wuu noo weydiiyey waan u sheegnay inaanan moodal annagu wadanin kuwa hadda banaanka yaallana midna inaanan hadda taageeraynin marka yani annaga waxay nagu ahayd arrin la yaab leh ayay nagu ahayd in yani uu warkaasi soo baxo markii aanu madaxweynaha aan la shirnay ka bacdi aad bay arrintaasi rajiciso noogu noqotaa waa tahay sidaa maqlaysaan aad bay fajiciso ugu noqotay ururada bulshada madaxdoodii kulankii ee la yeesheen madaxweyne farmaajo inuu been ka sheegay uu yiri waxay taageersan yihiin moodalka qof iyo cod in doorashada lagu qabtaa bal fiiri madaxweynuhu shir buu la yeeshay wuu la hadlay wakaa la fadhiya gadigood Dhuusamareeb bay wada fariisteen wuu la hadlay wuxuu kala shiray sida wax u dhici karaan ayaguna waxay weydiinayeen qaabka wax u suubin karo laakiin mayso ku oran anaga waxaan taageersannahay ama doorasho baarlamaaniya ama doorasho qof iyo cod midna mayso oran macnuhu waxa weeye ma ahan madaxweyne farmaajo ruux u shaqaynaya si daacad ay ku jirto waa nin been iyo isdabamarsiin usoo istaagay waa been cad ayuu ka sheegay idaacadihii bay ku fashileen v o a baa wareysatay waxay yidhaahdeen war-saxaafeedka madaxtooyada ka soo baxay oo madaxweynuhu soo sii daayey iyo wixii aan ku wada hadalnay isma laha madaxweynuhu been buu sheegaya waa beentiis madaxweyne been sheegaya ka war oo u taagan wixii hadda lagu wada hadlay inuu been ka sheego maxay tahay macnaha
shanta maamul goboleed uu oola fadhiyo dhuusamareeb hadduusanba maaragtay runba aqoon, hadduusan doonayn wax xalaala, hadduusan doonayn wax daacada oo asagii ra-iisul wasaarihiisaba ay isdabamaraysiin iyo ka shaqaynayaan iyo baalkii waxaan la aqoon. waa maxaa waxa meesha yaalla? ma garanayno. waxa yaalla waxaa weeye waqti lumis. hawshaanna waa hawl culus, mana noqon doonto si fudud mid ku farmaajo inuu xilka oga tago si sahlan ma dhici doonto. sababtoo ah dhaqankiisa markaan u fiirsato oo aa u fiirsato 3 sano wuxuu soo sameeyey, wixii dad uu soo laayey, wixii dad uu soo xiray, wixii maamul uu burburiyey, wixii been uu sheegay, wixii dad uu Etoobiya u dhiibay, wixii lama qiyaasi karo. waa disaster. waa nin beentani caadaystay, dadki inuu maaragtay lugooyo caadaystay, shacabka laayo, amniga sugi waayo, dhaqaalihii u isticmaalo waxa la yiraahdo qaab musuqmaasuqa, xildhibaanadii sharafta uu ka qaado federaalka, uu xildhibaanadii bilaaluushka la siiyo, qaarna wasiirra siiyo, qaarna kontrakti siiyo, si asaga u taageeraan ooga dambeeyaan. kuwana uu dembi kusoo oogu yiraahdo haddaa hadalka badisaan xilkaa laydinka qaadaya, maxkamada idinka dacweynaya iyo been uu dusha idinka saaraya. madaxweynaha noocaasa oo dimuqraadiyaddii aan ogoleenoo ninkii xisbi samaysto oo raba inuu la tartama gurigiisa ku weeraraya, ninkii xisbi samaysta oo raba inuu la tartamo yiraahda ma duuli karti, waddanka ma bixi karti, oo diyaarad ma raaci karti, oo cunaqabatayn saara. madaxweynaha aan ogolayn inay doorasho xalaala ka dhacdo maamul goboleedkii, oo doonaya doorasho asaga qofkuu rabo uu keena inay ka dhacdo keliya. waa ogeen wixii ka dhacay Jubbaland, uu rafaadku u geystay Axmed Madoobe, uu cunaqabatayn ku riday magaalada Kismaayo, yiraahda diyaaradna kama soo degi karto, kamana bixi karto. waa ogeedeen wuxuu ku sameeyey Galmudug, waa ogeedeen wuxuu ku suubiyey Koonfur Galbeed inuu yiri Sheekh Shariif Sakiin uu yiri waddanka soo ma geli kartid, iscasil. oo uu saaray lafta gareen ninkii la tartami lahaana uu xabsi geliyey oo ilaa hadda uu xiran yahay. madaxweynaha noocaasa dadka la shiraya oo maanta rajada kale waa dadaa meel kale ay aadaan ahayn, go-aankiina uu ku culus yahay ay qaadan lahaayeen. go-aanka u yaalla ay qaataan maamul goboleedyada wuxuu ahaan lahaa inay u yeeraan xubnaha federaalka baarlamaanka uga jira oo maamul goboleed walba uga jira, inay u yeeraan, inay shir ka qaataan, mooshin laga soo jeediyo, ninkan laga saara meesha. madaxweynahan totally meesha laga saaro. farmaajo ayadoo mooshin aan laga keenin oo aan xilka laga qaadin waddankan doorasho ka dhici mayso. hoosta ka xariiq, doorasho dhici mayso farmaajo aan mooshin looga saarin waddanka. ama United Nationkii inay yiraahdaan iscasil, oo inuu iscasilo asaga. labadaas arrimood ku dhici karta doorasho, si kale doorasho ku dhici mayso. ninka hadda beenta sheegaya oo ururadii bulshada beenta u sheegaya oo diyaarsaday qolyaha la yiraahdo gulwadayaasha iyo ururada haweenka, markuu intuu dhuusamareeb shir ka socdo wuxuu yiri shir wuxuu ka abaabulay barnaamij magaalada Muqdisho uu leeyahay waxaan taageersanahay doorasho qof iyo cod. doorasho qof iyo cod meeqa ku qaban kartaa? 2 sano 3 sano ku qaban karaa. meeqa sano rabta xilkina haysa marka 10 sano ma rabta waddanka kursi iska fadhiyo. waxa sharci maaha. doorasho ma ku qaban karo 1 sano hadda kuma qaban karo, because maba la soo shaqeynba. hal qof oo magac laga qoray oo la diiwaan geliyay ma jiro, hal computer oo daatadiisa loogu talagalay doorashada ma jiro, hal machine oo printer oo ID sameeyay ma jiro. see rabaa inuu ku qabto marka waddankiina argixisa haysta inta badan, suu rabaa in markuu doorasho ku qabto. maamul goboleed uu xiriir saxa la leeyahay waxaa ka jira kuwa asaga uu gumaysto uu samaystay, sida qoorqoor iyo lafta gareen iyo ninka la yiraahdo ninka Hirshabelle Waare. maxaa meesha yaalla dee beenta ninka la yiraahdo beenta farmaajo bal aan dhegeysano. annagu waxa waa dhexdhexaad baan nahay, waana ku heshiinay inaan dhexdhexaad ka ahaano siyaasadda Soomaaliya oon u jihayno meesha heshiis lagu yahay. haddii heshiis lagu noqdo qof iyo cod fine, haddii madaxda ku heshiiso muxuu ahaaye inay modelkii hore wax ka bedel ay ku heshiiso fine, haddii ku darsasho ku heshiiso fine. annaga waxaan rabna waxa weeye wax heshiis lagu yahay oo aan lagu kala tegin oo dhuusamareeb looga tago iyadoo madaxdii Soomaaliya heshiisay ku heshiisay waxa Soomaaliya oo dhan iyo dadkeeda oo dhanba muxuu wanaagu ah. Soomaaliya oo aan isku daynay inaan la hadalno ayaysan noo suurtagelin.
ururada bulshada rayidka ah oo ka qayb galay wareegii hore ee shirka wadatashiga ee magaalada dhuusamareeb ee ay yeesheen madaxda dowlad goboleedyada ayaa doonaya inay kaalin ku yeeshaan wadahadalladan looga hadlayo xaaladda kala guurka siyaasadeed ee dalka iyaga oo sheegay inay ku kooban yihiin oo keliya isku soo dhoweynta dhinacyada. shirkan oo maalintii shalay ka dhacay magaalada dhuusamareeb ayaa qayb ka ah. waa tahay waa arkaysaan uu diiday maaragtay inuu u dhaqmo si wanaaga. wuxuu been ka sheegayaa ururada bulshada, wuxuu been ka sheegayaa siyaasiyiintii, wuxuu been ka sheegayaa shacabkii, wuxuu been ka sheegayaa sharcigii, wuxuu been ka sheegayaa maaliyaddii, wuxuu been ka sheegayaa every department oo wasaarad walba oo dowladda ka tirsan. maxay tahay marka waxa oo maaragtay farmaajo oo laga rabo inuu maaragtay waddanka ka qabto? maxaa u malaynaysa? ma garanayo ani farmaajo waxa waddankan uu ka qaban doono uu maaragtay uu ka samayn doono horumarka laga sugayo wuxuu yahay. yaa u malaynaysaa inuu maaragtay farmaajo uu maaragtay waddankan uu oran doono farmaajo doorasho qabtayoo aan doorashadii ku soo baxay ama ku guul daraystay? yaa u malaynaysaa? wuxuu raadinayaa inuu diiwaan geliyo dad uu ku sheegay 3 milyan, laakiin sidaan warka ku hayno lagu sheegay dad dhowr boqol ah oo uu doonayo inuu yidhaahdo codeeya oo ku shubto uu ku joogo sidaas. ma aha dee marka wax oo maaragtay soomaaliya ay ku shaqayn karto, ma aha wax soomaaliya ay horumar ku gaari karto, ma aha maaragtay wax maaragtay looga fadhiyey, mana aha wax qof caqli leh ama maskax leh uu sameeyo. marka barnaamijka intaasan kusoo koobayaa. waxaanu barnaamijka ku saabsanaa beenta iyo fashilaadda ku dhacday iyo weliba waxa laga filan karo shirka ka socda dhuusamareeb oo hadday u badato ay ka soo bixi doonaan wadatashi dambaa dib aan isugu laabanno, taasoo ayadana ah in waqtiga lasii dheereeyo oo waqtiga lasii dilo oo waqtiga lasii lumiyo. wax kalena kama soo bixi doonaan shirka dhuusamareeb, waxaa ka soo bixi doona wadatashi kale aan isugu soo laabanno, maadaama arrintu ay arrin adag tahay. khiyaanaduna meesha kama marno, jilaafo badanna waa la dhigi doonaa. ruuxan ku ogsoonayn abalkaga eri eber baa tahay